السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال وبوليمود ميديا براتين halkan inuu idinka soo gudbiyo wararka iyo warbixinada iyo casharo muhiim ah waxaan casharkeen ku soo qaadanaynaa Bible-ka sida loo sameeyo iyadoo ay soo weydiiyeen dhalinyaro ku xiran journalka waxaa haddaba tegaysaa haddaad mobile isticmaalaysid iyo haddaad computer isticmaalaysid labadaba Google aad tegaysaa Google markaad tagtid oo ku dhufatid wuxuu ku keenayaa meesha wax laga baaro Google-ha oo lagu qoro search bar-ka loo yaqaano waxaa ku qoraysaa www.bible.com baad leedahay waa ku dhufanaysaa wuxuu ku keenayaa gudaha Google-ha intaasoo waxyaabood oo about searching in ka badan uu kuu soo saaraya oo kala noocya Bible-ka qudhiisa fara badan Bible business Bible account sign up free haddii uu qofku leeyahayna login buu leeyahay laakiin hadda waxaynu ka hadlaynaa waa sida loo sameeyo marka waxaan ku dhufanaynaa taa ugu sarreysa oo ay ku qoran tahay Bible sending money by online or set up merchant account marka halkaa ku dhufatid wuxuu ku keenayaa qaanadan oo ah wajahada Bible-ka laguna garto qof walba oo samaysanayo Bible way kala duwan yihiin waxaa ugu muhiimsan markaad sidaa ugu dhufatid ninkaa halkaa taagan waa Bible-ka saxda ah marka log in waa qofka iskale hore akoon u samaystay sign up anagu waxaan rabnaa hadda inaanu sameyno mid cusub akoonka aynu sameynaynaana waa personal waxaa ku dhufanaysaa sign up wuxuu kuu soo saarayaa qaanadan oo ah meeshii la rabay inaad foomka ku buuxisid waxaa ku qoran halkaa shop and send money around the world at the speed of light waa waxaad kaga ganacsanaysid adduunka o dhan wax kaga gadan kartid si lacag meel online-ka aad ku gadanaysid wax maaha waxaad dukaan tegaysid ama meel aad tegaysid waxaadna ogaataan Bible-ku waa bangi waa adigoo bangi iskale oo kale oo ismaamulaya marka email baad gashanaysaa waa lama huraan emailkaa gelinaysa inuu yahay email sax ah email jira oo sax ah baa lagaa rabaa inaad gelisid halkaana waxaad gelinaysaa mobile number halka markaa mobile number gelis halkaana magaca sax ah baad gelinaysaa halkaana magacaaga ugu dambeeya gelinaysaa wuxuu ku leeyahay marka aad telephone numberka gelisid waa inaad haysataa telefonka aad gelinaysa numberkiisa Google text you security code to confirm this number wuxuu kuu soo dirayaan code lagu xaqiijinayo inaad adiga tahay in kale marka halkan
waxaad gelinaysaa baasweer adag baa gashanaysaa oo ka kooban xarfo iyo tiro iyo nambaro symbols kala duwan. calaamad marka aad gelisid baasweer kala duwan oo ah magac iyo lambar iyo symbols, calaamadda cagaarka uu kuu saaraya waa sax. next baad leedahay. wuxuu iisoo diray messageka uu iisoo diray koodka ahna waxaan gelinayaa meeshaan. next baan leeyahay. dhib malahan hadduu kaa daaho koodka una kuu soo dhicin markiiba resend baad oran kartaa. halkaana marka muhiim ah, hadba waddanka aad joogtid baa muhiim oo aad gashanaysaa. wuxuu ku weydiinayaa straight line 1 straight line 2. waddamada oo dhan meel aan straight number aan lahayn ma jirto. qofku waxunbuu isaga qoranayaa. marka soomaaliya haddaad joogtid dhib malaha, wax straight iyo mala xaafad baa isaga qoranaysaa. marka boosta code iyuu u baahan yahay. wax la dhaho boosta code dadka soomaaliya jooga waxay u samaysan karaan iyaga dhib malahan. qof dibadda jira adresskiisa ku qoranayaan oo dhib malahan. halkaana dhalashada waa muhiim, qofka inaad dhalashadiisa ku qortid kadibna waxaad leedahay confirm. halkaas waxaan idinkala talinayaa halkaa stylog ay ku qoran tahay iska ilaali haddaa kombiyuutarka isticmaalaysid. hadhow hadduu qof kombiyuutarkaaga oo furan iska soo galo automatically hadduu ugu dhufto meeshaas searching barka oo ku qora bible already waxaa soo furmaysa khaanadaada oo bilaa wuxuu weydiinayaa wax bahalkiya shuruuda isagoo aan ku xirin. kadibna si toos u arki karaa akoonkaaga bibleka oo bangiga dhanku ah. marka waxaa kadibna oranaysaa agree. halkaas markaa intaad buuxisid agree baad leedahay, agreed akoon. sidaasoo akoonka kuugu abuurmayaa. wax fudud weeyaan, waana marka kuu abuurma hadhow waxyaabo kaloo muhiima gudihiisa markaa geshid baa jira oo aad buuxsan kartid. qofka kaarka in aad kaar bangi leedahay oo kaarka ku xiratid. waa boolmoog media. wasalaamu calaykum. tan iyo kulanti dambe daawadayaal waa mahadsantihiin.